arinku saabsan Sheekh Ali Wajiz oo su'aalo badan laga soo weydiiyay oo la leeyahay sheekhu uu ridoobay maxaad u xukumi weydeen isagana isagoo diinta ka baxay baad haddana masaajis iyo mikrofoonada ku soo dhaweynaysaano markaan sii baadhay dadka su'aalahoodana waxay leeyihiin sheekhu wuxuu yidhi qur'aanku dowladaha looma soo dejinin qur'aanka loogumana talagelin inuu dastuur u noqdo dowladaha ama inuu xukumo dowladaha sidaasay hadalka u dhigeen dadka wax ii soo qoray arrintaasi runtii markaan maqlay aad baan ula yaabay maxaa yeelay waa markii ugu horreysay horta maqlay horay ulama soconin inaan la yaabana waxaa keentay Sheekh Ali Wajiz waxaan ka garanayay wuxuu ahaa ilaa waqti dheer intaan garanayay nin uun dee ummadda ruuxa bini aadamku khaladaad waa yeelan karaa laakiin ka mabda'iisa aan ku ogaa wuxuu ahaa ilaahay haddana aan ku ogahay nin tawxiidka ummadda ugu yeedha oo masaa'ishan diinta ilaahay in lagu xukumo ummadda dalkeeda iyo dowladdeeda iyo dhaqankeeda iyo in muxuu ahaay ay diintu tahay dowlad tahay dowladdana dastuurkeedu ay shareecada noqoto annagoo muxuu ahay dhalinyaro ahoo jaamacadaha dhiganno uu sheekh ku ahaayo dadka ugu yeedhi jiray marka ilaahay haddana wax iska beddelay ma ogi sidaa unba muxuu ahaay aan ku ogaa marka waan la yaabay ruux muslim ah oo haddana culimo ah oo ku dhiiran kara shareecada islaamku looguma talagelin inay dowladaha xukunto waa masale culus waaye arrintaas marka la yaabay noqotay kadib waxaan raadiyey muxuu ahaayey hadalkaas iyo bal inaan xaqiiqadiisa dul istaago kilibkii baan raadiyey waan helay markaan dhagaystay waxaa iga soo baxday sidan soo socota hadalka horta sheekha uu yidhi iyo hadalka dadku ay sheegayaan ay xukumayaan farqi baa u dhexeeya waxaan jeclahay inaan hadalkiisa soo guuriyo hadalka sheekhu wuxuu u yaallaa sidan uu yaallaa wuxuu leeyahay sheekhu hadalkiisu sidan waa wuxuu yidhi kitaabka qur'aanku waa kitaab caam ah oo ummaddan mabaadi'deeda iyo maqaasideeda iyo caqiidadeeda iyo cibaadadeeda lagu dhammaystiray hadalka qayb saas wuxuu daba dhigay laakiin tafaasiisha dowladaha lagu socodsiiyo oo lagu nadaamiyo qaamuus loogu talagalay ma aha marka hore wuxuu qiray sheekhu hadalka ku cad qur'aanku inuu yahay kitaab caam ah oo ummadda mabaadi'deeda maqaasideeda caqiidadeeda cibaadadeeda dhammaan lagu dhammaystiray gadaaldan wuxuu daba dhigay laakiin tafaasiisha dowladaha lagu socodsiiyo ama lagu nadaamiyo qaamuus loogu talagalay ma aha meesha lagu haysto marka waxa weeyaan tafaasiisha dowladaha lagu nadaamiyo ama lagu socodsiiyo qur'aanku qaamuus uma ah qaamuus loogu talagalay ma aha hadalkaasi iyo hadalka marka dadku ay soo guuriyeen ee la xukumayo ee la ii soo diray isma laha aaday u kala fog yihiin hadalka la ii soo diray dadku ay leeyihiin sheekhu waa ku gaaloobay wuxuu leeyahay sida la iigu soo diray sheekhu wuxuu yidhi qur'aanku ma aha qaamuus loogu talagalay in dowladaha lagu xukumo hadalka noocaas hadduu noqdana waa gaalnimo sax laakiin hadalka wadaadku saa uma yaallo hadalku wuxuu u yaallaa yacni wuxuu u yaallaa tafaasiisha dowladaha lagu xukumo tafaasiisha iyo nadaamiyada hoose dowladda lagu nadaamiyo qur'aanku qaamuus loogu talagalay maaha ayib farqi baa marka labadaa hadal u dhexeeya kan dambe ee sheekhu ku hadlay marka la fiiriyo macno sax uu yeelan karaya macnaha saxda uu yeelan karana waxay tahay siyaasadda sharciga marka la fiiriyo siyaasada sharciga marka la yidhaahdo iyo guud ahaanba diinta dowrka ay ku leedahay shareecadu qur-aanka keliya maaha sheekh qur-aankuu ka hadlay laakiin qur-aanka iyo sunnada iyo wixii lagala baxay markaad fiiriso siyaasa sharciya dowrka iyo kaalinta ay ku leedahay waxa weeye waxay dejisaa qawaacid iyo dawaabid caam ah
قاعدة المصالح والمفاسد، درء المفاسد، قاعدة المضار، يعني وحويا قواعد عامة سياسة مركز الجو، سياسة لقى الله هي الدولة هي النظام لقى الله مبادئ جود بيدجسها، مبادئ الجود شرعته مركز يدجسه، تفاصيل شخصية نرشها لقول نظامينه، الدولة لقول نظامينه وحيقود ديسا اجتهاد كيقود ديسا. وحتكون قران كرتان مثلا نظامك مقالوينك سيدي مقالوينك نقونيسو، سيدي الدولة أردك ميسو، صلاحياتك أودها الدولة، سلطاتك إيا كلا ساري دودا، محوها وحيكون حرانت هاي مامولك إيا محوها هاي سيدي مامول حقوق دي وصائشي لغو حقيقين لها. أرمها سوى أرمو التفاصيل هوسي oo aynan quraanka iyo sunnadu toona aynan nasan isdul taagin waay, laakiin waxay u dejisay qawaacid guud oo la leeyahay aan la khilaafin. waxaa badan marka inta ay shariicadu u deysay in lagu ijtihaado. saas daraadeed ba nidaamyada hadda dawladuhu ay dejistaan ama kuwii hore muslimka ahaaba yani lagu waday ee hoose andimada hoose iyo tafaasiisha hoose ah ما أهين قرآن كنا نصا قضب مدل استاغين أحاديث النبي كنا قضب اسم مدل تاغين وحيدة جسي ندام جود أون لخلافين أون لقبحين أو جود أو دنعيها كإلالية ضبطية لكن وحي شريعة أديسي نولشا إيا نظامين تيدا هوسية تفاصيش هوسي وحي أديسي اجتهاد كي نولشا اسبدلسي أديسي وحي نهوز قليسا إن بدن أو كمدا وحي سوهوز قليان وأرمها الدنيا دا إيا نظامين تيدا واحد. أرمها الدنيا دا إيا نظامين تيدونا وحي أديسا قواعد إيا مقاصد إيا مصالح جود أو شريعة أديسي أديسا مثلا نبتقلية دي إن لسقو عدالة دي عدل بحقوق دي سإني هشو خيرات كي إن لقيبسادو سي عدالة لغو قيبسادو دولة دي إني قدته مسؤوليات كي إني قدته دولة دي إن لمراقبية ومحوها هاي للا حساب تمو كل ذلك وحي أديسا مقاصد لكن قابكي إيا وسائلكي إيا النظامكي أرنتا لغو قاري لها بني آدم كان لو داي اجتهاد كان لو داي علماء دا لو داي دادك الاختصاص كان لو داي ما إنه قرآن كل شيء والبا استدلت هاي معناها سمرك اللي هو معنى صح. إنع وحي كسو قليسا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويري في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم محوء هاي قل يوحو أركي بيرها بعرميني وانتي لبك سو قادان جيدك ددك أكو بعرميني markaasuu nabigu wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam haday iska daayaan way bixilay markaasay iska daayeen beerihi way been markaas loo sheegay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka antum a'lamu bi amri dunyaakum adduunyadiina arrinkeeda wixii adduunyo ku saabsan idinka u xogogaalsan laakiin wixii diin ku saabsan fa ilayya wixii diin ku saabsan aniga ii soo celiya laakiin wixii adduunyadiina ku saabsan idinka u xogogaalsan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxay soo hosgalaysaa qodobada hoose iyo tafaasiisha hoose shariicadu aynan qodob isu dultaageen ay u deysay ijtihaadka waxay soo hosgalaysaa xadiidkii nabigu sallallahu alayhi wasallam almuslimuuna ala shurutihim wixii muslimiintu dejistaan oo nidaam ah oo lawaa'ixa oo xeerar ah oo shariicada markaa ka hor iimaaneen sharti waxa ah inaan shariicada ka hor iimaaneen qodob shariicada ka hor iimaanay inaan meesha la gelinin laakiin wixii nolosha lagu nadaaminayo iyada lafteeda waxay u adeegaysaa maqaasida shariicada u adeegaysaa taasi marka waxa way waa wixii lagu heshiis saas daraadeed ba yani qaacidadu waxay tahay asalka shuruuda iyo uquudu asal waa ibaaha waa inaan laga helin sharti iyo miisaaq shariicada ka hor iimaanay mar hadayna ka hor iimaanayno majaalka fasiixa ah ee lagu ijtihaadayo ayuu galayaa waxa soo hosgalaya sidoo kale xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis abi darda inda darqutni wal hakim wal bazzar ee nabiga sallallahu alayhi wasallam ahalla Allah fi kitabi fa huwa halal وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته وما كان ربك نسيا يعني وحي إلهي كتاب كيس أوكو حلالي وحلال وحي إلهي كتاب كيس أوكو حراميين وحرام وحو كأمصي أوصن كهلنا وعفس يا إلهي عفي كيس أقبله ربكي وحمه المامي بمعنى قيبرنا ونرش كمذا أي شرعه أينن نصا حلال وحرام ويدين كأمستي وحي شرعه أي كأمستي ربي مهل مامنه دد كان له داي وشيء يعني عفي واي وشيء إلهي تبارك وتعالى أداي مركا محا مصلحة
maxaa mafsada maxaa dhib keeni kara maxaa nidaama maxaa xeerara maxaa lawaa'ixa see loo kala socdaa see nolosha loo kala wadaa nidaamkaa inay dejistaan meelahaasay gelaysaa sidaas daraaddeed arrintaasi arrin ishkaal weyn lama aha arrin hadal la dhihi karayo tafaasiisha hoose ee dowladaha iyo nidaamyada iyo lawaa'ixda iyo xoroosaadka iyo qaabka dowladdu u kala socotay hoose haddaynan ka hor imaanaynin nas ama aynan diinta ka hor imaanaynin tafaasiisha hoose waa sax qur-aanku qodob isuma dul taagin sunnada nebiguna qodob isuma dul taagin ijtihaadka ummaddaa loo daayey waxaa loo daayey nolosha bini aadamka isbedelaysaa loo daayey nolosha meeshii ma joogto way isbedelaysaa yani wax weeyaan horumar baa imaanaya xadaaraadkii baa isbedelaya qaabkii nolosha isbedelaya magaalooyinkii baa isbedelaya qaab dhismeedka dowladihii baa isbedelaya waxbaa soo kordhaya kolba wixii soo kordhay waxay u baahan tahay nidaam buu u baahan yahay waxaasi marka wax sharciyadu qodob ay isu dul taagtay maaha